واكشمون قرق يا كقاد هذيك ما قفك أنا ما قاعد ويل اللي جرى قاعد أبني مركو نوع ما حتى هبينك نجمت تجد ولا تشوجه wiil ordayo yaraa imaaday askariya inta qoriga loogu qaato oo guri ka tikirri Larsoonkii wuu kacay sidoo nimankii ku aaday waxa ay soo dheen ma sheegi karo haddana inuu laami amni isku bedel asaab baad qaaday asaab dhahay qorigan iyo ninka soo wareejiye laami amniga ah laba mar oo kala duwan waa dar xuseen waxaan idin jeedinaynaa amaan ugaarsadihii isaga la ugaarsaday tani waa tusaale lagu muujiyay sida dulmiga looga adkaan karo xilliga dadku uu midaysan yahay maalin ku taariikhaysan 25kii bishii 2025 Cabdirasaaq Mahdi Hiloole waxa uu soo baxday kagana soo istaagay fadhigiisii marqaanka dad shacab masaakiin qaxooti ah oo ku mashquulsanaa dhisidda guryo ka samaysan cawshado isagoo arkaya xaaladooda nugul ayuu isku dayay inuu baad ka qaato balse halkii laga baqayay waxbi iskiisa isagii ayaa laga faramarsaday qorigii uu sitay guriga aad tagay anoo kaliya oo joojiyay oo nin ii diray ninkii oo ii diro eedeysana inuu maqan yahay yaa ku diray ninka eedeysana oo maqan oo waraaqada ku qoran Larson sabab kugu diray maxaa meesh ka socday maxaa meesh ka jira dhismaa ka socday soo jooji u dhaa haye guriga soo jooji tag soo jooji isoo laabo ninka muxuu ahaa markaas ninka askari booliis oo dhismaha marka masara lisay maxal lisay jingada lisay soo jooji u dhaa isoo laabo imo sabab loo joojinaa ku leeyahay habeen madoow aad wuxuu dhahay way la dhuumanayaan ay dhisayeen macnaha waa la dhuumanayaan oo dhaano maxay la dhuumanayaan dhismay la dhuumanayaan waraaqad meestan oo degmada ka socoto minishibi ma aha isaga booliis waa minishibi ma degmadu ka shaqeynay kadibni maxaa ka dhacay meesha kadib aniga u tagay marka la hadli maagay nimankii oo meesha jooga nin kamid ah qoray ila qabsaday markuu ila qabsadana aniga waxa isla inta dhibaato kale ka imaaleed oo adana ama si ay ka dhibaato leed dhibaatadaas adiga u gaartay ay ka qoro u daay qoriga u deysay maxaa u sheegtay marka uma ma la hadlin ba inta la hadlin ba ay ka soo soo istaagay oo joojiray mid kamid ah soo aaday agtii soo istaagay inta hadal la gaarin boqor oo ila qabsaday qoriga kula qabsadeen markii ka qaadan kadib maxaa dhacay markay qaadeen ka bacdi saldhiga waan ninkaas oo dhinac raba amal ay saldhiga ay dhan ninkan kale muxuu ahay kula fid ninkan kale ninka macnaha qoriga ii diibay ninkaas ma qaan ninkana isna qina aniga qoriga ii diibay macnaha qoriga weeta ma u lahaa ninka maqran iskala qoriga ma amiina ka qaad qoriga amiirka waa socotaan amiina macnaha ani marka u tagay meel socon goorma ku yimid ma ana meesha u tagay macnaha ay ku qiila ani u tagay marka u tagay ninkaas dhaay cunug yariisa noo imaado wuxuu dhaay shaqo meesha guriga meesha laga dhisayo markuu dhahay ninkaas wuxuu dhaay amiinu guriga soo jooji amiin ninkii inta qoriga qaado ani diibay guriga soo jooji u dhaay amiin see loo xiraad kula socon ma kula socay macnaha ma kula socda adiga amiin wala socda marka qoriga laga qaaday ma kula socda wala socda laakiin asi meesha ma taagnin seeba warkaas macnaha asi meel taagnin ma ani kaliya u tagay laakiin asi meel cid agtida uga harma banaanku taagnaa XW xooga Amiin Maxamed Axmed kor ayuu kala socday sheekada heshiis ayuuna kula ahaa in la soo baarto barakacayaasha buushka dhisanayay waxaana uu isku dayay inuu soo furdaamiyo saaxiibkiis markii la qabtay Larson isna waa eedeysana saddexaad oo hadda maqana ahaa waana qofkii iska lahaa qoriga katikatiga lagu soo doonay ninkan qoriga maxay u dhibtay adiga aniga wiilka kale booliiska oo maalintii 6 saac hore asaga jaadka ii qaadeen isla qiileeno isla fadhino xilli 12 saac amal ayadoo la marayo meesha aafadin iyo meesha dhismaha ka socdo wax yar isku jireen shaqadaas soo joojiyo anigana waxa shaqadaas ma jooji karo sidii anagu u fadhinaa maqribkii amal wiilkan oo socdaan loo yimid markaasuu yiri wiilkan waaye iraac shaqada ba soo joojiya ana maamulka isnaqaana ana booliska gudoomiyaha ana gurigaas ka deesaayo lacagtan ana sidaas ugu qaadayo anigu waxa irnay qoriga daninka u dhiibeen ninkan ina qaraabatiin waaya irnay oo suucitiin waana qana walaalkiisna waa taqaana walaalkiis ii sheegu yiri walaalkiis marka uu sheego wuxuu yiri walaalkiis ku xaafadaan abri guweed aslana ninkan sidii qoriga ku qaatay wax yar ka bacdina wax maqlayna ninkan in qoriga laga qaatay subaxii habeenkii ninkan waa la xiray sidoo oo baaraha data sheegay 25 kan ilaa soo qaban 22 kan ninkan la qabtay habeenkeedii saldhigi markaa imaanay waxa la yiraahday wiilka qofka oo sheego ninkan qoriga u dhiibiso adiga ma waa isla fidinaa markuu qoriga u dhiibay laakiin ninkan iyo labada nin isma qool laakiin ninkan waa aqaan marka uu sheegana inuu ninkan walaalkiis marka uu sheegana way is aqoodeen qoriga ninkan sida lagu dhiibo shaqada soo joojay adiga xariga taal yiri sida aniga lagu xiray waa 23kii adiga markii oo meesha la tagay dadka oo meesha shacabka hoo qabteen ninka odaga
way sheegeen adiga inaad la socoto qorog ugu dhiibtay si uu wadada gadoomiye aniga lama socon ninkan qoriga aniga waxa ugu dhiiba aqoon ahaan aniga aqaano laarsoonka adaa ku aqaanaa qoriga qaad ee iraac anigana waxa irin ninkan nin ay qaraabatiin waayo qoriga u dhiib shaqada soo joojiyay walaalkiis ka weyn oo axmed yara ee dhaana u sheegay markaas yiri waa isna qanaab isku caafadana sidaas oo ninkan shaqada ku joojiyay qoriga markii laga qaatane ribood xabada dhacday cabaar mar la joogo qoriga la qaatay aan la soo sheegay wiil ordaayo yara imaaday askariya inta qoriga loogu qaato oo guri ka tikirib laarsoonki woo kacay sidoo nimankii ku aaday waxa ay soo dheen ma sheegi karo adiga meesha ma tagtay ragaas ma maano adiga ma tagin aagdumi u baahi laaniga ubo inkastoo si dhiirad leh ay ugu xayuubiyeen qorigii uu watay ayay haddana qaateen go'aan geesinimo leh maadaama wax dhib ah aysan u geysan markii ay qabteen balse si mas'uuliyad leh ayay boolisku ugu yeereen gacantana ugu geliyeen eedeysanaha shacabkii waa kuwan iyagoo garsoorka uga warramay sida ay wax u dhaceen dadkan oo dacwadan ka oo anoo qahooti hay meel qahoota laga soo berkay dhul dada deganaa waa laga kici markii dhulka laga soo kici meel oo dadka boosdeed gudoomiyaha ninkii gudoomiyaha hay waxa igi meel adigay maalan soo goori maalanka labaad an oo dhismadii markaas abilaaway dhulkii la isii gudoomiyaha meeshan dhisan dheeri wax musbaar wax noo soo gaday oo waqti maqrib la soo tukaday baad hadan cisho soo tukanay waxa ay imaadeen laba qof oo qolkan wax ku jirnay markaas hoos laga dhigi buushki korna loo daboolna afar qof oo ku jirna mid banaanka jooga ashanaad waxa imaadeen laba qof mid waxa wadi diriska dawladda wadi booshish iyo tuuta ugu jari qoriga wati waxa soo galay mid sacab boole diris iyo wax u wadan markii soo galay afar qof oo meesha saas u fadhini oo soo degnay cishana la soo tugdi hal saac bar meelahaas inay haysaa malaya markaas waxa shaah noo keenay shaah cabayna ninkii soo socday guriga dhaxdis qolka soo galay markii qolka soo galay waxaan dhahay ninkan yaaway ninkan waaya markii dhahay ninkii waa laabti waxa yiri ninka la jira waxa yiri soo gal waxa yiri ninkaas ma soo galay markaas dhahay nacalla ku taala qorigiisii ninka waa soo boodi markii qorigiisii la dhahay afartan shaka na galay waa soo kacni markii soo kacni laba qof soo kacni mid saas oo istaagi aniga saas oo istaagi markaas qori la soo naqdi qori markii la soo naqdi imaanku waa soo furnay xabada nagu rid hoostana xabad ku ridi markii soo ridi xabadii labaad oo qori saas day mid haddana socdo aniga u hayn qori saas gacantiis dhag uga sii qori markii saas uga dhigi dhag uga sii booshki qoriga ka dhigi anin kuleetiga ku dhigi waa ka shamooni dhulkan la galnay qori xagga u dhici midkii saas markii hore dhag u sii qoriga qaadi anin waa qabti waa celi meeshii maamul oo buushka ku jiray anin ninkii saas waay taleefanaa la diri amniga loo yeeri ana ninkii saas waay oo naagii caruur soo istaageen inay dilaan rabin waxay ha dileen meeshii dawliga ku jirta maamulaa jira amniga jira hanugu dileen naga dhaaf anin naftay waa badbaadi isu naftiis waa u badbaadi ma la dilna waa la keeni amniga imaadi amnigii in ninkii maamulka noo haay oo buushka suuna oo maamul nagu haay oo amnigii unagu yeerin nagu soo hariiri waxay qoriyaa keena ninka nagu soo wareejiye markaas aan ma wareejinayn waxay ta ma ogeyn tuugada hadda meesha noogu taashay inay ateen kan ma ogeyn qof ka sayn amniga oo inay ateen ogaanay wacayna ninkii loo wacay waxay nimantaas amniga way ku wareejiye qoriyaa ku wareejini meesha waxa saldhigi hadana nimantii noo wadan saldhigan nageey oo degmada deynila cusboolo meeshan nageey ninkii qori meeshan soo wareeji meeshan soo duubay dadkaas dhacdaas saasan ugu ridin waa dilma oo kas bareera lagu dili gurigay cilmahay raaskay naagahay caruurtay anoo saas u daadsan gurigay soo galeen way ka soo dileen marka koowaad uu soo gala qofka qore la'aanta idin soo galmay marka hore marka koowaad ninka soo galay ninka oo tuuta ugu jira maayn ninka sacboliika haay qori mu wadan muxuu idin dhax waxaana dhahay waxa meesha ku haysan iska aruuri waxa haysan iska aruuri teleefon meel waxa meesha yaaleen intaas yaaleen keenu dhax ha keena dhahay haye
markii keena dhees saasa u fiirini qormoodana ninkaas geeska jarahay waa naqday ninkaas kale qoryahaas ninkii kale u naqday macnaha waa ka diidamay baxa dhaxdeen ha ninka maxay tahay markii maxay tahay saabuliha un camalahay waa iska naqday ninkaas oo yarga qoryo keen nacala ku taala ninka mi aqoonsan way aqoonsan doonaan qoryo soo qaati markii qoryo soo qaat saas oo soo gaani hal xaba hoos nagu rid hadaba baloogtidi waa la soo qaadi waa la wadaa u maleeyaa markaas labaad haddana xabadii soo sawirtay agsaas usayna iska difaacni naftaan caruurtaan waxa dhan ku difaacni markaas kadib qori waxa dhan loo qabsanay saas u qabanay u garbadoon dhulka la galnay wax laguma dhufno waa kaas waa keenay markii qoragyaa ka qaaday adiga ma qofka aniga ma qaan wiil ili jaro ka qaaday laakiin ani waa ku shamuun wax dil deed ma loo geeynin ma laha jukal marka qorag ka qaaday kadib maadan garaacin ma garaacan waa la garaac waa la rabay naagi caruur wax kasta waa dad oo buusha meel ma lagu sheegaa waa lagu soo shamo inaan la garaaco hal yaa la garaacin anaa dhahay anaa difaac u galay waa kaas waa weydii kara wax la gaarsin ma laha hore mu arki jirteen hore mu arki jirteen weliga iko way maalintaas hadda wejigiis markii la soo qabsay arkay wejigiis qomina ka soo kana ma arag kadibna ma arag ma aqaan suunay ma aqaan marka laba qofood ma qabatay hal qof la qabatay ninka oo markii qabanayna wiil kale qabtay anaa qabtay laba qof qabanay laba qof hadda xiran halkaas may hal qof qabanay hal la qabatay halka guriga noo soo galay oo tuutay ders wax u wadan sacabaleyka qorog noo soo galay halkaas qabanay ninka kale markii ono ninka qabtay ana saa u firi markaas abbaxay mar carri soo naqday markaas hadhay wara dhaq wara dhaq ka kacna loo tar saas tuutay oo booshku saas hadhay ninkaas kale hay war ka kac wax busteeli amal watan uga dhigtay war ka kac ninka inaan uga fakir rabay ninka kale ani markaas ninka caliyay waa u jeedi abnigi intii u imaan haddana ka soo tuuti wax iska soo ridi meel iska soo dhigtay waa soo naqday booshka soo uga jar waxa dhahay keena ninkii oo qoray keena asaa idin dhahay siga dhaha abnigi tayay soo diray tayay meeshii waa joogaa nimanta oo ogaa waa dhahay qoray markaas la dhahay naaga soo fiireen ilmee soo fiireen waxa la yiri hay waa tuugi kili jaray way oo tuuta waa waday ninkii waa carray abniga soo galay marka abniga iyo waxaas arkay horo carray qofkii ninka qabatana jirb ku yir ogaateen kadib uu ka carramiya markii ninka la qabtay ogaani oo isugu waxa faraa uga jarna qorayna gacanta galay waa carray idinku isku dayn inaa qabataan asna maaba markaas oo kan leeb ku mashquulsanaayeen kadib markaas soo naqday mar labaad markii soo naqday busteeli waxaas war ka kac ina ka fakiiray markaas laga shamo carray mar saddexdaadna soo naqday ina tuuta iyo wax isku soo dhig booshka bisha soo qaad amniga oo qoriga ninka soo wareey jiray badan qoriga ina ninka saas noogu baxsan rabay soo naqday markaas soo saalee naaga tiri kii la jaray way tuugi weelday markaas amniga imaadi afraa sii carray wax la idinka qaato idinka maqan ma jiray idinka maya wax naga qaatay oo markaad naga qaatay ma jaran laakiin mobeela ina naga qaato waa rabeen ka bacd wax noo maqaan suun wax kama qaan wax noo maqaan laakiin naftana inaan dilo oo meesha lagu dilaa rabay marka intee ka soo guurtay inteena dhisanays wax ka soo guurni degmada Daynil meel oo dhaho masaajidka xawganay la dhahay laamaga ka soo guurni laamaga deganayno laamaga ka soo guurni hadana meel dhulkii iska lahayd dhulku waxa iska lahaay ninkaas oo hadda booshiishka oo horwada noo kirey ma aqaan oo qof kale hatta qof kale ma kasayn laakiin meesha waa la rabaa ku guuraa leeyahay waa la isku qabsaday haddana ninka waxa dhul meeshan ayaa la soo guuro ninkii haddana nu guuriyay idinka marka waxaa tihiin miyaa qaxootiga dadka qaxootiga booshiishka waxaas deganaanay deegaanka ka gurteen tawaa deegaanka baydhoo way gobolka bay way deegaanka aad ma santadeer iska fadhiis afar qof aan ahayn afartii xilli cishe ahayd hal saac bar oo kale saacada markay ahayd waxaa noo imaaday ninkaas geeska xigo unbaa iyo ninka kale noo imaadeen markay noo imaadeen waxaa gudaha dalaq soo yiri ninka geeska xigo unba wuxuun dhahay maxaad haysiin markuun dhahay waxba un baa markii dambe waan shakeenay markii dambe maxaa ritiinaa dhaan markii dambe u dhaha ninka geeska xigo wuxuu dhahay gudaha soo gal gudaha ninkii dambe wuu is adkeeyey labay ahaayeen markuu is adkeeyey waxaa gudaha qorigii isiiyo dhah qorigiiyo ka soo qaatay xabad unbuu miray xabaddii labaad moosa mirin afaraan ahayn ninkii markuu kuu dhow yahay ilan sidaa u qabatid way dhowdahay markuu kaa fog yahay laakiin isma gaari kartid xabaddii labaad moosa mirin
markii dambe qof anaga ka mid oo qorigii asigii dhuntu iskula dhigay qorigii markii gacanta aan ka dhignay ninkii kale oo qoriga watay wuu baxsaday markuu baxsaday waxaan gacanta ku dhignay ninkii xabadda soo miray oo soo gal uu dhah bacdeen ninkii waan qabanay waan xirnay amnigaan raadina amnigii aan wacnay degmadii aan la xiriirnay meesha waa meel adii iska kaamay ahayd waa dad markaas un dhismi iyo waxyaabaas ku jiray ahaayeen dadka bacdeen markii arrimahaas ay dhaceen amnigii anagoo ka maqan isla ninkii naga baxsaday dib nooga soo laabtay markuu dib nooga soo laabtay ani ma ogeyn ma dareensaneen ilaa meesha haddii jaam uu jiro mashquul uu jiro ma dareemi kartid kii wax kuu dhimay kii kale maan dareemin markii dambe oo anagii saldhiggii qorigii iyo amnigii noo imaadeen unbaa waxaan dhahnay amnigii ka wareejinay iyo qorigii iyo ninkii markaan amnigii ka wareejinay qorigii iyo ninkii un saldhiggii unbaa isla hadnay amnigii iyo anaga waa israacnay saldhiggii unbaan tagnay sida xaaladay u dhacday unbaan u soo sheegnay amnigii waxaan leen beri hal saacun noo imaado halkiisaa waan aadnay xirjalmar unbaan usoo gudubnay xaaladda meesha ka dhacday sidaas unbay waxu jecel ninkii dambe oo qoriga booshka watay unbaa dib nooga imaaday wuxuu dhahaa amnigii unbaa ahay intaan amniga aadin ka hor oo dib nooga soo laabtay amnigii unbaa ahay markaas amniga haddaad tahay dhibanaanahayaan dhahnay aniga maan dareensaneenba weliba saanoo ii hortaagnaa aniga qofka hortaagnaa anoo ahaa ninka oo xabadda ridi qolaan geena anaga bacdeen markii xaaladaas ay dhacday ninkii amnigii ahay oo na dhahay wuxuu keliya nooga la imaaday tuti uu iska soo dhigay funaano wata iyo buumo diboo nooga soo laabtay amnigii unbaan dhahay amniga haddaad tahay dhibanaanahayaan dhahnay aniga maan dareensanaan markii dambe oo arrintii goor ay dhacday ninkii wuu naga baxsaday see ku fahantay inuu ninkii yahay dadkii dambaa ii sheegay markii goor dambaa la ii sheegay inuu asigii yahay ku jiray kii labaad uu yahay bacdeen markii arrinta saasay u dhacday amnigii unbaa kala xiriirnay sidii unbaa kala soo xiriirnay xirjalmar iyo sidii unbaa xaaladii ay ku dhacday ayaa qabta horta ninkii waxaa qabtay xuseenaa qabtay xuseen nuur markii ninkii la qabtay kadib ma weydiino maxaa naga rabta ma dhahdeen anta xabadda markii la qabtay kabacdi ani waraysigiis maan ogen laakiin markuu gudaha soo galayay oo xabadda ridayay wuxuu dhahay maxaad haysiin iyo waxba isku dardara kow markuu soo galaya marka nin muxuu rab inuu qaato ah muxuu idinka rabi ma aqaan kulle nin inuu taleefamo dhaco iyo xaalado kale iyo nafsadayna inuu u socdayba xataa iska macquul ilaan qof gurigaa kuu soo galay oo ku soo weeraray inuu wax ku gaarsiiyo imaa asiga wax gaarsid labadaas unbay u dhexaysaa maxaa qabataa adi ana macallin dugsi ah oo quraan markii habeenkaas xuseen cabdiraxmaan ehel la tahay xuseen cabdiraxmaan waa adeerkeyga laxmiya qofka gurigiisa lasoo weeraro waa gurigiisaan dhex fidhan adiga marka qofkan kale markuu imaanayo oo ku leeyahay amnigaan ah inaan qofka lagu wareejiyo rabaa miya in qofkii iyo qorigiisa sidiisa lagu wareejiyo anagana kuma aan degdegin ilaan anaga amnigi anagaaba wacnay soo maahan waan raadinay amnigii aan sugnaa amnigii markuu noo imaado xataa habeenkii nagama tegin wuu nala jooga wuuna waardiyeeyey habeenkaas inay nala seexdeen ay u badan tahay amniga booliiskii oo degmada ka socday wayna la seexdeen habeenkaas wayna waardiyeeyeen wayna ilaaliyeen asiga hadduu amniga oo yahay muxuu iska markii degdeg oo uga baxay moona la joogo moona ilaaliyo dhibanaa banaaye shacabkii maatada meesha deganeedaa banaaye marka gadaal dambaa ka fahamteen gadaal dambaa ka fahmay inuu asigi yahay marka soo bedestay adiga iyo maragga kale maxkamadda hor imaaday waxaa sheegteen in guriga aad joogteen xilligaas wax shaqo ah oo socotay ma jirin soo maa ma jirin waa la iska joogay waan fidhina okay markuu gudaha soo galay oo qarigii soo qaatay idinka ileen waa aragtay inuu qari doonto mogtahay marka soo ma sameynin idinka oo afar ah gaarayo inaa aadeen asagina uu ka baqay inaad wax gaarsiisaan sidaas darteed qoriga oo kor ugu taagay xabadana in lagu dhagay soo ma maya xabadii labaadaa lagula dhagay qorigii fahnaya xabadii koowaad qori laguma dhagin aadoo u maray xabadii koowaad ma hoose u dhacday kor u dhacday maxkamadda bal sharax taas ma caddayn karo inuu xabadii ridi unbaa caddayn karaa haddoo hoos u dhici leed derbi meelo unbay ku dhici leed soo maahan xabadsaas waxay la tahay inay kor u dhacday okay eedaysanaha maadaama aa qabateen
oo qorigiina laga qaaday wax dhibaato ah ama aad gaarsiiseen ama asiinii gaarsiiyey intuba ma jirto Soomaa maya waan ka ilaalinaynaa dhibaatada qofka difaacayay adeerkaygii anigu un baahan in dib loo geysto ina amniga gacanta ka saaro un baa go'aansana okay qoriga dhiibistiisa si iskiisa oo ikhtiyaari ah u dhiibi Soomaa uma aan dhiibin qoriga waa laga qaada xaqada waasanta yaa horta habeenkaas ahday ahayd anaka meesha ma deganeen macnaha waxaan noo wacay inaa wax la dhisno habeenkaas ahday ahayd aye adeerka marka waxaan noo wacay inaa guri la dhisno adi muddo marka cishaan tukana ninaa guri noo soo gala markaasuu yiri ha haysiin yaa ahayd markii ridoo tag wuxuu yiri soo galo yiri ma soo galaayo yiri ninkii kale ida taano qori wato qori dhiibo yiri qori soo dhiibay habada lagu soo rido adeerkaas ku dooba waa la qabana amnigaas lagu wacay adi meesha ma deganta maya arbiskan deganaanay laakiin maana waxa la dhiskaaleeyo oo tii ahaa meeshii degan laga barakaashay meelkay degaayeen marka qaraabahan leegu ay maana waxa la dhisaheed ya qaraab la taa marka wadaadka qaraab la taa adi arbiskan deganta arbiskan deganaanay waxa u timid meesha inaa wax la dhistaa adeer wax la dhisaa haye waa ka ninka keen markuu dhinaa maxaa u haysiin udin dhiib meesha ustaagsa wuxuu yiri maana maxaa haysiin oo yiri maxaa ahayd markii qolkii ridoo istaag wuxuu yiri soo galo yiri ninka la socda qoriga wato banaanka taaganaa ma soo galaayo yiri qorigiisii yiri marka qoriga soo qaada habada soo tuuro odayga isku duuba waa la qabana qoriga laga qaada amniga degmada la wacay sidii lagu wareejiyay waa ka ma idinka maxaa u haysiin si keena dhuhu maxaa u haysiin mana saddex telefoon waaweyn meesha ka haysan wala isticmaalay maxaa haysiin oo ujeedkiisa marka maxaa waa weydiin weey kulli jeesi ilaahay og laakiin kulli telefoon oo rabo malayaani telefoonka inuu rabo saddex telefoon weyn meesha keena maxaa haysiin oo yiri maxaa ahayd markii ridoo tag wuxuu yiri soo galo ninkii qoriga wato ma galaayo yiri qorigiisii yiri bas habada lagu soo rido markii la qabtay qofkii kale banaanka taagnaa qoriga laga soo qaatay aw ya qofkii la qabtay kan waa la qabtay ma ho kii kale qoriga markuu dhibanka habada u rido waa arar dhar xaram adoo wata afar qasnood madow u saarneed marka anigoo meesha ku dhashay gurigi quraada naga dhacday hoos baan ku daboolnay kor dhiman noo dhiman quraad nagu dhacday maqrabaan dukunay waaskana marka habeen waayo anigoo meesha ku jirno marka shaar noo keenay anigoo shaacaweyn marka ninkaas aan soo galay ninkaas geeska jira ayay maxay haysiin oo yiri saasoo loo fiiri inuu istaagay wuxuu yiri inay qoriga ii dhiib qoriga marka loo dhiibay hore ku soo galay xabada hore ku soo riday xabad markuu soo riday anaga waa kale yaanay maxaa ka rabaa marka fiirsi waxba ma weydiinin baadi waxba ma weydiinin guridu soo tagay oo dhaay gadaal u laabtay ii dhiib qoriga uu yiri xabad leeyahay ku soo tuuray macna su'aal iyo hada qof macna hadii oo macna guri dhisay ta qof oo macna oo ka tiraadey hada wali yaqaan bogtay waxna ma weydiinin ninkan muxuu socday kula taa muxuu idin rabay markaas kullu ana ma sheegi karo aniga wuxuu nagu rabay habeena ahayd shay ahayd bilib kadib waa la qabtay kadibna waa la qabtay lama amniga lagu wareegay markaas aan igu wardumbeysay saldhigga degmada Daynile oo loo geysiyay askarigan la qabtay isaga iyo qorigiisa ayaa soo diray sargaal xigeenkan oo u xil saarnaa amniga goobta falku uu ka dhacay wana gudoomiye aniga waxaan ahay sargaal xigeen ka tirsan saldhigga Daynile gaar ahaan jooga degmada Daynile adiga cashii markii laga soo baxay habeenkii ay soo ragana soo waceen bacdan dhibaataan haysata nin iyo qorigiisan haynaa guriga lagu soo weerar nin iyo qorigiis guriga lagu soo weerar ayaan haynaa waxaan saas tahay way soo gaareenaa haaya yaa wax la gaarsiin isla daqiiqadii waa u tagnay anagana roonda galaan ku jirnay waa soconay isla markii waa u tagnay waxaan u tagnay ayagoo ninkii haayaan saddex nin ahay nimankan laba waa carartay ninna waa kana hay qorigiisa in jeedayaan waa ka soo qabtay riboodan la wadaaga saldhigga waxaan ritaliyay saasaa jirta ninkaasaan hayaa dadka u dhibaleeyahay waa hayaa hadda waxay dhaheen waa habeen tali waa habeene beri subaxdii iyo keen caawano meeshiisa ku hay meeshii aan ku hayna habeenkii subaxdii halka saacna waa soo wareejiyey qorigiisii asigoo nabad qabaan waa wareystay aniga waxaan riyaa kula socday wuxuu dhahay la socda qoriga yaa lahaayaan cunugan qor adigu marida yaan qoriga ninka qoriga ii sheeg waa ku daynaa wuxuu u bacalin leeyahay qoriga iskaloon ka qaaday u bacalin leeyahay aan qoriga ka qaaday oo iskalo ii dhiibay oo noogu soo shaqay ilo ila socday mugay aan guriga galan oo iga carareen asiga nin kale oo leeyahay Larson oo hadda maqan saddex niman ahayn labadaas waa carareen anigana waa kana waa la qabtay waa maasantahay adi sidii saldhigga ku geeyay saldhigga warbixinta waa siiyay oo bacali dib laga soo qabtay hadana kubaha arki jirteen obo waa askari hore waa jira waliisaan ku ogaay aniga hadda laakiin shacabaan dadka yiraahdaa ninka maqano oo Larson waa leeyahay Larson ninkaasu police waa leeyahay police waa lagu leeyahay military waa lagu leeyahay mar xoojino saldhigga kula joogi jiray oo saldhigga Daynile kula joogi jiray laakiin hadda meel ku tirsan ma aqaan ma arki jirtay markaas mutaqaan waa aqaan Larson arki jiro taliya saldhigga hore yeel xubno soo jiro adaa ka soo qaadamiya qoriga iyo maxbuuska dadka qoriga iyo maxbuuska iyo anaga nagu soo wareejinaa isla habeenkii waa miya isla habeenkii isla markiiba isla adiga waxay 20 daqiiqo camal aan ka maqnaa markay noo soo sheegeen
samarkii waa gaarnay goobta anagu hebel ba socdaan ku jirin roondaan ahayn anaga maamulka degmada isla socon marka qofka la qabtay idinku wareejiyeen aad waraysateen maxaa ka rabtaan dadkan masaakiinta bannaanka yaalo guryahooda dusayna maanta la soo dushay maxaa idin keenan dhahan waa qaraabaynay dhahan telefoon wax baan goobanayna iyo wixii kale markaas daganoon helno waxba nagama qarinba ninkaas waxaa kay doontaan gurigan u gashaaday nimankan kaaga harnay gurigan galka u dheheen ka qabar rabta meesha telefoonaan goobayo dhowr xabo hadda soo qaadan labadii kale igala fakatay xataa waa ciilan qabaa hadda lama isticmaalaan ayagi oo igala maqan yihiin shan xabo kale markaas tiin noo sheeg hore soo qaateen ha maxaa looga eriyay ciidamada liiskana looga saaray iyo sharaxaad ayaa laga dhageystay xafiiska xeeraalinta oo fadhigan ay ku soo bandhigeen taariikhdu markay 25 bishii 12aad 2025 ay waxay sameeyeen fal isku day dil ah eedeysanaha labaada la adeegsaday qorigan qaadaa la dhahay meesha tagaa la dhahay waa la raacay xitaa waxyaabaha cajiibka waxaa kamid ah inuu askari iskaga dhigay haddana inuu laami amniga isku bedel asaa baada qaaday asaa dhahay qorigan iyo ninkaas soo wareejiye laami amniga ah laba mar oo kala duwan waa kowda hore wuu fashilma macnaha baadii u socweys mar labaad dadna wuxuu isku dayay qorigii si uu u helo maadaama qorigaasi uu soo qaaday wuxuu ka dhadhacsiiyey dadkii deegaanka in bahashan laamaha amniga lagu wareejiyo asagana uu ka mas'uul yahay laamaha amniga wuxuu iska dhigay taliyii waaxda cusub oo iska dhigay amiin iska dhigay laba shaati oo kala duwan oo gashay amiin hosturgiis waa kana wuxuu ku dhashay xamar wuxuu degan yahay Daniel qaybtaas 21 oo ka tirsan yahay gudoomiye dhacdadaas ayuu Cabdirasaaq qayb kala ahaa asiga iyo eedeysana maqan oo Larson liiraad kadib xoogaa qoriga looga qaatay eedeysana Cabdirasaaq oo sanad labaad qoriga marka laga qaatay waxa dareemaysaa dadka deegaanka qoriga ay qaadeen inaysan ku dhufan inaysan dilin inaysan ku baacsan inaysan dhiibimeyno waxay la soo aadeen laami amni maanta waxay la taagan yihiin sharci eedeysana labaad waa kana Cabdirasaaq la yiraahdaa eedeysanahan taariikhdiisa oo taariikhdan 25 bishii 12aad ayuu dhacaas geystay guriga uu tagay asaa joojiyay asaa rabay inuu baad ka qaato ciidanku waa ka tagay hoosh loo dir maaha waxyaabaha soo dhan oo foolxumada ku dhaqaa goobta mid gudoomiye waa goobtan hal xabo oo dhacdo ayaa maadaama ay tahay meel goob badana ay ku yaalaan aqallo ay ku yaalaan aqalladaas oo ka samaysan geedo iyo baco lisaaray oo dadkan meesha degan xitaa sharci ma degmada wax kama qaado waa la og yahay wax la og yahay degmada kama qaado lacag dhisma kama qaado waa la dhistaa meel loogu talagalay ma in laga qaado maxaa yeelay qofka meeshaan degan qutulyoomkiisa laga asal cararay ayaga iskaashita ahaan ku dhisay macalinka la dhisay ninka kale oo askari ahaa jira la dhisay odagana dhisanay meel oo roobka ugu gambado oo baraasanayo halkii in xoogooda ku caawiyaan masaakiinkan gurgiisa ayay barrabaanba inay ka qaadaan lacag nasiib galba dhisiis hay'adaha cajiibka dhulka ma laha dhulkii dad ugu dayr raxmadaas loo fidinaya waa caawa meel oo galo leeyahay markaas hor istaagay inuu caawa meel oo galo inuu helay u diiday qoriga mid gudoomiye lagu dhacay waa qorigan xafiisku wuxuu ku dadaalay in la horkeeno waa yaala muuqaal laga duubay muuqaalkan wuxuu ku sheegay mid gudoomiye in OB oo u dhiib hawshan sida qiraal kacab marka waa qiraalkii marka la qabtay uu koor sameeyay cadeyntii oo koor baxsho waay saldhig oo koor baxsho waay qorigan yaa ku soo dhiibay وبعلي موت هذا لكن لو سoo qabto maana وبعلي ii dhiib loo qoray waa ninka xiran amiin korkiis wax kuma yaalo lama taaban lama jir dilin qoriga si tactical loo qaaday laami amniga lagu sameeyay ninka qoriga u dhiibayna waa ninka la xiran kuma dhaafta Allah asaa qoriga meel laga rabaa waa kan eedeysaniyo qoriga falku ku geysto wata markaan Larson raadin mid gudoomiye waxa helay sawirkiis Larson waa askari hadda ka tirsan FAB mush ma qaato wax xuquuqa baxsad waa la raadina Larson la dhahaa hatta gacanka ciidanka meesha u suran yahay waa qaldan yahay asaga dhan ba qaabka u labisay hatta waa qaldan tahay goodirka booliska wata mana ka tarjumaan inuu baadda nimankan qayb kala ahaana ku eedeynayna xafiiska uu raadinaya maxkamadda maasantahay ku-xigeenka xeeralyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe muumin xuseen cabdulaahi ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaashan ay ku qaado qodobada eedda ay ku soo eedeeyeen xafiisku waxay ka mid noqdeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo siiyay fursad
oo ay weliba ku lahaayeen number iyo xuquuq askari debla ay xoogga dalka u hela ayay lahaayeen oo dowladdu ogolaatay taasoo askarta iyaga la midka ah ay roob ugu da'o dagaal ugu galaan u dhintaan ayagoo askarigaas ku xaq ah oo la xuquuqahoo la goobahay inta ka soo baxeen furimadii iyo goobahay joogeen waxay imaadeen magaalada muqdisho oo ciidankii ay ka tirsaneen ka soo fakadeen ayadoo aan loo qaban ka tigis goobtaas shaqo oo aysan gacan sharci u imaanin ayaa bulshadii magaaladan muqdisho ka nasaweysay haddaba mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedda labaad haddaan u gudbo labada eedaysane waxaa la qabtay eedaysanaha labaad waxaa la qabtay isagoo ku guda jira falkii baadda ahay falkaas baadda ah qof dee iska jeebroon hoo guri dabaqa iyo fillo dhisanayo umuusan tigine wuxuu ka qaraabanaya u tegay qoys masaakiin oo qaxootiyo ka soo qaxay deegaankay deganaayeen oo abaari ka soo rartay oo buush dhisanayo oo gabalku intuu ku dhacay gurigiioo kor ka bannaanoo roob xitaa ku imaan kara yacni inay sidaas kula hoydaan ku tala galay ayuu u tegay si uu uga soo qaato baad haddaba mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh halkaas eedaysanaha mataqaan labaad waxaa kula dhacay yani waxaa ku qabsaday halkaas waxaan ku soo koobi karaa erey kooban oo ah yani ugaarsadihii isaga la ugaarsaday yani halkii uu rabay inuu baad ka soo qaato ayaa suuro gelisay in gacanta lagu dhigo uu sidaas ku waayo xorriyaddiisii oo lagu soo xiro mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh muuqaalka aan soo bandhignay oo eedaysanaha labaad qofka uu sheegayo qoryo ii dhiibo uu leeyahay waa eedaysanaha koowaad xilligaasna ma xirna lama hayo laama amni gacantooda kuma jiro laakiin isagaa laga aqoonsaday sidaasaa lagu dabagalay laguna soo xiray mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda horteeda si kooban uga ammaanayaa ninka markaatiga halkaan imaaday xuseen nuur cali oo suuro geliya qofkaas khatarta mataqaanaa bulshada halista ku hay soo qabtay naftiisana ka badbaadiyey dadka shacabka imaatada masaakiintana ka badbaadiyey xilli habiina isaga naftiisana badbaadiyey ee ugu wacay mataqaanaa yani u suurto geli in laamaha amniga loogu yeero oo isagii hubkiisaba lagu wareejiyo yani dhiiranaanta iyo nafurnimada iyo waxa uu sameeyey waa waxaan caadi ahayn waxaan maxkamadda horteeda yani uga jeedinaa mahadcelin aad ugu mahadsan yahay shaqada wanaagsan ee uu qabtay isaga iyo asxaabtiisa la socotay ee maanta maxkamadda hor imaaday mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh gabagabada dacwadeeda dhibanaha iyo dadka la socday halkan joogay waxay sheegeen inaanay xoole ka maqnayn laakiin isku daydii lagu sameeyo gurigoodii lagu qalqalgeliyey xabad dhulka loogu dhiftay dowladduna raalli kama aha halkaan innagaa ku matelno raalli kama nihin qaanuunkuna ma ogola qof shaqadiisa haysta in la hor istaago in mataqaanaa hubka la sitaa loo isticmaalo sidaa daraaddeed mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda si xushmad iyo sharafi ku jirto uga codsanaynaa labada eedaysane in ciqaabta ay tilmaamayaan qodobadan ku soo eedaynay mid walba ciqaab uu sheegayaa balaas inta loo dhaho lagu wada xukumaan codsanaynaa maxkamadduna waa mahadsan tahay abuukaatayaasha difaaca u ahaa labada eedeysane ayaa dhankooda maxkamadda weydiistay in xuriyaddooda la siiyo muwakkiliintooda maadaama aysan falgaysan macmiilkayga waxaa lagu soo eedeeyey inuu baad ka qaadanaya dhismo socda sidoo kalena waxaa lagu soo eedeeyey isku day dil oo u geysan rabay xuseen cabdiraxmaan maxamed mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha markii maxkamaddu u akhrisay eedaha loo haysto wuxuu ku jawaabay si waafaqsan 104 faqrada koowaad xarafkiisa si inuusan faldambiyeedkaas gelin mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh macmiilkaygu eedaha loo haysto ma gelin sida jawaabtiisa oo maxkamadda ka hor caddeeyaba taasna waxaa muujinaysa mudane guddoomiye eedda ka sokow wax caddayna oo muujinaya in aamiin uu isku day dil samayn rabay sidoo kalena uu baad ka qaadan rabay dhismo socdo mudane guddoomiye maxkamadda sharafta looma soo gudbin eedaha loo haysto waxaan rabaa inaad dul istaagno eedaha si eedaha loo haysto inuu galay in kale maxkamadda aan ugu caddeeyo
mudane guddoomiye qodobka 34 ilaa 17 oo ka hadlaya isku day dil wuxuu u baahan yahay si loo helo wuxuu leeyahay tiirar waa in la helo 3 tiir waa in la helo qof doonaya inuu dilo qof kale waa in la helo mudane guddoomiye fal qofkaas uu sameeyey sidoo kale tiirka saddexaad waxa waaye falkaas qofku sameeyey inuu u dhigmo uu qofkaas macnaa inuu ku sababi karo dil inuu ku sababi karo mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha inuusan faldambiyeed kaas loo haysto si gelin waxaa caddaynaya ninkan mudane guddoomiye qorina laguma soo qaban qorina ma lahayn aalad wax disha xataa gacantiisa ma usa saarin mudane guddoomiye sidoo kale mudane guddoomiye goobta falka uu ka dhacana ma teginba mudane guddoomiye taas waxaa caddaynaya ninkan baaraha kiiska maxkamadda wuxuu ka hor sheegay in eedeysanaha macmiilkayga oonan ciidanka ka tirsanayn wuxuu ka hor sheegay inuusan qoriga asaga lahayn mudane guddoomiye taas waxay caddaynaysaa inuusan ahayn qofka tuutaha watay ee la socday taasna waxaa caddaynaya qof aan ciidanka ka tirsanayn tuuto suu ku heli karaa siduu qori oo maxaa la yidhahdaa ciidanku uuna simbo intuu ka heli karaa mudane guddoomiye taas waxay caddaynaysaa eedahaas loo haysto inaysan waxba ka jirin eedeysanayaasha eedeysanaha qareenku ahay eedeysanaha kale iyo ninka kaloo maqan waxay isla fadhiyeen goob macmiilkii wuxuu ii sheegay in ninka hadda maqan uu u wacay kadibna uu dhahay niyow maanta anaa qabo waa wada fadhiisanaynaa waa wada qayilaynaa mudane guddoomiye way soo raaceen guriga ninka hadda maqan oo laalsa lagu magacaabay wada fadhiisteen meeshaasay ku wada qayilayeen macmiilkayga goobtaas ay ku wada qayilayeen inta ka soo tegay meesha fal ka dhac ma tegin qorigana asaga ma lahayn oo ninkan uma dhiibin ninkaas eedeysanaha wuxuu sheegay inuusan ninkanba u dhiibinba qoriga marka sidee mudane guddoomiye loogu soo eedeyn karaa isku day dil inuu samey rabay inuu baad samey rabay qofku baad samey rabay qofku baad ka samey rabaa uu tegi lahaa meeshii baadda laga sameynaya uu tegi lahaa wuxuu ka faa'iidaystaa la heli lahaa wuxuu wax ku dili karay oo aalad oo isticmaala lagu soo qaban lahaa mudane guddoomiye intaasba ma dhicin taasna waxay muujinaysaa eedaha loo haysto wax ka jiro oo xitaa muujinaya caddeemo yar mudane guddoomiye maxkamaddu looma soo gudbiyo aamiin mudane guddoomiye wuxuu ahaa ciidan sidoo maxkamaddu u sheegaba ciidannimadiisana waxaa ka saarneed dhibic ma shaqaynayn qof active ma ahayn sababtana mudane guddoomiye wax kale ma aha waxay ahayd in la yiri qori keenso mudane guddoomiye ninkaas dhallinyarada oo familkiisa ka duruufaysan yihiin qori ma gadan karo waxay ahayd maadaama naftiisa u huray inuu qaranka difaaco uu ciidanka qaranka ugu biiro in dowladda qori siiso nin wax lagu ammaano lunsadana maaha ehladiis maxkamaddii hor fadhiyaan markii uu weydiisto u dhahay ciidanka qaranka ku biiraa qori hal ii gadana waxaa la dhahay annaga ma awoodin inaan ku gadno sidaasna mudane guddoomiye wuxuu ku noqday qof magaaladiisa ka xamaasho oo baabuurta ku shaqayso haddii mudane guddoomiye in la fadhiisto oo la qayilo ay dembi noqoto waxaa la rabay in maxaa la yidhahdaa lagu soo eedeeyo oo sharci ahaan loo helo taasna lama heli mudane guddoomiye arrimaha loo haystana wax ka jira oo ilaahay leeyaha ma laha mudane guddoomiye taasna waxaa caddaynaya maraga maxkamadda la keenay mudane guddoomiye kiiskan marag ka wada furaya dhammaantood waxaan weydiiyey su-aalo quseeya macmiilkaygu doorka uu ku lahaa waxayna dhaheen qof sheego in aamiin oo qayb ka ahaa mudane guddoomiye ma laha waxay dhaheen qof kalea la socday sanaha labaad qofkaasna ma caddayn karno qofkaas mudane guddoomiye wuxuu noqon karaa qofka maqan sababtana waxa waaye waa ninka ugu dhow oo qori lahaa waa ninka tuuta heli karay waa ninka meesha ka shaqayn karay sanaha macmiilkaygana afkiisu ka sheegay inuu yahay qofkaas waana qofka wax ka maqan yihiin oo qoriga ka maqan yihiin oo rabay inuu raadsado oo meesha u tegay inuu qorigiisa soo qaato mudane guddoomiye macmiilkayga meeshaas lagu qayilayo ma usa soo dhaafin goobtana ma tegin hubna ma wadan wax caddeemo oo muujinayana meeshaas lama keenin mudane guddoomiye anoon ku dheeraanaynin waxaan rabaa inaan maxkamadda gabagabadii intaa codsiga ugu soo gudbiyo, 1 ku saabsan in eedeysanaha koowaad aamiin uu yahay qof dembiile ah oo dembi ka galay falal ka dhacay magaalada Muqdisho. 2 ku saabsan in eedeysanaha labaad uu yahay qof
maxamed axmed eedaha loo haysto uuna gelin mudane guddoomiye sidaas darteedna maxkamaddu sii deysto maadaama mudane guddoomiye xafiiska xeer ilaalinta uuna soo gudbin wax caddaynayo in eedeysanaha uu faldambiyeed dil iskuday dil uu geystay inuu baad ka qaadan jiray nimankii mudane guddoomiye ninkii markhaatiyaashii iyo qofkii dhibanaha meeshaa la keenaba ma sheegin aamiin inuu qayb ka ahaa waxay dhaheen qofkaasna wuxuu noqon karaa qofka maqan wuxuu noqon karaa qof kale in lasoo helo u baahan tahay mudane guddoomiye maadaama eedeysanaha lagu hayn wax caddayna oo muujinayo inuu faldambiyeedkaas geystay maadaama uu yahay mudane guddoomiye qof doortay inuu qarankiisa u shaqeeyo laakiin duruuftu ku kaliftay maadaama la qori soo iibso uunan awoodi karin inuu magaaladiisa ka shaqaysto maadaama mudane guddoomiye uu yahay qof waalidkiisa macno weyn ugu fadhiyo oo ehelkiisii waalidkiisiiba maxkamadda hor joogaan cadaalad ay maxkamadda ku sugayaan maadaama mudane guddoomiye eedeysanaha markii inta eedda maxkamaddu u akhrisay uu ku jawaabay si waafaqsan 104 inuuna dembigaas gelin maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaya inay xorriyadiisa siiso si waafaqsan qodobka 122 maxkamaddu waa mahadsantahay mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh markay maxkamaddu u akhrisay muwakkilkayga si waafaqsan 103 wuxuu ku jawaabay si waafaqsan qodobka 104 faqrada koowaad inuu qabo dood sharci mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh maadaama intaas qodob lagu eedeeyey oo intaba mid walba uu leeyahay arkaan iyo tiirar culus uu leeyahay waxaa waajib ah ama laga marmaan ah in xafiisku uu keeno caddayntaasoo lid ku ah muwakkilkayga mudane guddoomiye markii tiirarka laga hadlayo waa inuu qofka laga helo dhowr arrimood arrinta koowaad waxay noqonaya marka inuu ku talagal qofkan subaxii waaga markuu beriyo u soo baxo si niyad same leh oo inuu wax asigoo joojinayo ama hor istaagayo ama dhibaateynayo qasdi oo gurigiisa ugu soo baxaa labo mudane guddoomiye waxaa loo baahan yahay ficilkaas qofka markuu sameynayo inay ku dhisan tahay aaladii ficilka lagu geysan lahay aaladdaasna ay tahay aalad qofka asigu si ikhtiyaari ah gurigiisa ugu soo qaato oo madasha ugu tago ama goobta aado dhib ku gaarsiiyo waxaa kaloo jirta mudane guddoomiye in qofka rabitaanka markuu sameynayo inuu fal geysto wuxuu sameeyaa ama laga dareemaa in qof dhib badan yahay ama dadku yaqaanaan ama bulshadu ay u aragto ninkaa mar walba nin dadka dhibaateeyo oo mar walba marka la arko la dhahayo hebel ninkaas waa nin dhib badan oo bulshadu magac xun xaggeeda ku leeyahay mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh xafiisku wuxuu caddeyn ahaan u keenay maraggaas oo ka mid ah 3 qofood waxaa kaloo la keenay dhibanayaal dhibanuhu markay maxkamaddu wareystay wuxuu sheegay in wax dhib ah loo geysanin wax hanti ah laga qaadanin dhibaato kale la gaarsiinin okay marka sidee wax u dhacay mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh muwakkilkayga cabdirasaaq intuu ka soo galay dhibkan ama dhacdadan dhacday muwakkilkayga wuxuu ka soo galay inuu u imaaday eedeysanaha koowaad oo ah amiin aqoonna ka dhexaysay rag oo isyaqaan ahayn aqoon ka horna ka dhexaysay ujeedkuna ahay asigoo socodkiisa ku socdo inuu goobta ugu tagay kadib uu dhahay niyo bal meeshaasaan tagaynaa shaqaa ka socoto warbixin la keenay warbixintaasaan ka jawaabaynaa amaraana la siiyey amarka cidda siisana waa askarigii maqanaha ah hadda oo lagu tabaayo qorigiisana asiga dhibka ku gaaray ama meesha lagu rida xabadda asiga lahay mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh haddii marka qorigi la siinayo askari dowladeed wuxuu soo maraa habraac iyo nidaamyo kala duwan habraacaas waxaa ka mid ah qofka inuu tababar qaato inuu waqti tababarka oo xeerku sheegay oo ciidankun u degsan jiro in qoriga marka la siiyo lagu ammaanaystay oo dowladdu ay shaqadii loogu talagal qabto intaas marka mas-uuliyad ah qofkii la saaray mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh haddii qofku qorigaas oo dayaco ama dhiibo meesha waxaa ka dhalanayso mas-uuliyad darro ah oo qayb ka ah mas-uuliyaddaas sameeyey askarigii qorigii dhiibay intaas marka laga soo gudbo mudane guddoomiye garsooreyaal cabdirasaaq qoriga waxaa u dhiibay amiin cabdirasaaq wuxuu u socday amar
la dhahay shaqadaas jooji meeshaas tag sidii uu ku baxay oo meesha imaaday goobta markuu imaaday mudane gudoomiye waxaa dhacday kow markuu galay iskama gal xabad ma tuurin dhibaato ma gaarsiinin moobilaan soo aruuri ma dhihin shaqo jooji u leh sida wada ognahay mudane gudoomiye marka shaqo qabanayo ama guri la dhisaayo magaalada waa la og yahay waxaa jira habraac la maro degmada la tagaa sharciga la bixiyaa sharcigaas oo warqado fasaxa la qaataa guryaha lagu dhisaa xilliga dhibka dhacayna waa xilli haween ah maadaama haween ay tahay mudane gudoomiye habeen wax la dhiso magaaladan ma jirto mana la dhiso guri ma la dhiso sidaas daraaddeed marka maadaama amar uu soo qaatay cabdirasaaq amarkaasna la soo siiyey oo la lahayo shaqadaas jooji ujeedkiisa amarkaas inuu shaqada joojiyo eedmaha ujeedkiisa ma ahan inuu isku day dil sameeyo ujeedkiisa ma ahan carqaladeyn inuu sameeyo ujeedkiisa ma ahan inuu qalqalgelin amni abuuro ma ahan gudihii uu gal marka mudane gudoomiye gudihii markuu galay oo amarkii bixiyey amarkii waa la qaadan waayey way diideen wuu soo baxay markuu soo baxay wuu ku laabtay qorigii uu soo qaatay qorigii markuu soo qaatay mudane gudoomiye waad garan kartaa dad meel wada joogaan oo qofkan askari yahay ciidankana soo maray waa dadkii waxay sameynayaan waxaa laga yaabaa inay dadkii qofkii ay isdhaan bal ninkan iska qabta way soo aadeen markay soo aadeen sidaas ayuuna gacanta faraha kula galeen mudane gudoomiye marka asigoo marka dhowraayo ilaalinayo inuu dhibaateeyo ayaa maraggii ka mid ahaa maragga maxkamadda la hor keenay wuxuu sheegay qori inuu kula dhagay xabaddan sida ku dhacday waxaan rajeynaynaa waxaa doorkii laga soo dhexgalin mudane gudoomiye qofka marka haddii uu askari soo maro nidaamka wax ka yaqaano ciidanka wax ka yaqaano oo habraac soo maro intuba waxa waaye qof sharci u hoggaansan maadaama iskiisa loogu saarin oo ciidanka loogu saaray si oo macnaha isha qaladaad ay sameeyeen ayaga dartooda mudane gudoomiye meesha waxaa cad marka in ciidanka laga saarin oo loogu saaray sabab jir awgood marka inuu iska baxay ama ciidanka ma tirsaneen ma la dhahayo mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan rabaa marka maadaama wakiilkayga uu khilaal ka yahay joogista meesha oo joogay shaqada inuu joojinayo in howlo loo diray oo ah in hor istaagaas shaqada uu sameynayay mudane gudoomiye si waafaqsan qodobka 4aad faqradiisa koowaad qodobkiisa xalafkiisa ji waxay sheegay in qofka haddii uu qayb ka ahaado fal uu ku talgal asiga uu sameeyey aysan ahayn ay sabab keento darteeda in maxkamaddu ama garsoorku uu khafiifiyo ciqaabta ku xusan ama qiimeynta ku xusan inta uu doorku ka leeyahay dhibkaas uu geystay maadaama mudane gudoomiye wakiilkayga oo intaas aad lagu soo eedeeyey intuba cadeen waxaan codsanayaa maxkamadda inay u tixgeliso qodobkaas maxkamadduna way mahadsantay maxaa ku baxay maxaan codsaneen maxkamadda sharafta leh waxaa ku codsanaya xorriyaddeeda inay siido in sameeyey shaqo aan lahayn oo ku qaldanahay waxaa ka codsanaya inay iga khafiifiso gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ammaan iyo bogaadin u jeediyey dadkii shacabka ahaa ee ka hortegey iskudaygii baadda maadaama ay ku falceliyeen caqliyad xambaaran fejignaan degganaan iyo bisayl waana marka ay si nabad ah ugu wareejiyeen eedeysanaha booliiska iyagoo aan waxyeello u geysan xuseen cabdiraxmaan dar xuseen adiga iyo dhallinyarada fadhiga ka soo qayb galay waxaan idin jeedinaynaa ammaan aad ku mutaysateen sida geesinimada leh aad u diideen ugana hortagteen falka ay damacsanaayeen eedeysanayaasha sidoo kale waxaad ammaan ku mudanaysaan sida mas'uuliyadda leh aad naftooda iyo jirkooda u ilaaliseen markii la qabtay kadib isla markaana aad goobaha sharciga aad kula tiigsateen oo sharciga aad la soo tiigsateen aad u mahadsantihiin cabdifatax akhyaar warbaahinta qaranka muqdisho